بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. دق وحبو مسحة وقت دور حرف آيات كبوديسة. مركب وراد بدي سلام يا كلن كان كوبان متقن أسكوني مني. سان للربني أيو وداع دورنا إن شاء الله أو إنه نقدر ديسكشن كوبان أو عن ضد بدنين. سبب تحصل حل الدنبه وصو إعلامنا ضد معين أنا عن وتلقلنا هنا جالسينه. sidoo kalena aan u dalabnay la istiwaangeliyo si dadka loo dadkeenu culays kama jecla moogta dadka qaar baa laga yaabaa in istiwaangelida inooga hareen iyada laftirkeeda damba ay ku jirta waxa ku bilaabaya marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa Borama Youth Job Center oo ina marti gelisay taasi aad baan uga mahad celinaynaa teamka Axmed iyo Ilyas iyo inta kaleba positionka iyo qalabkan ku shaqeynaynaaba qodobka labaad waxaan ka oranayaa institutionka iskugu yeeray eventkan ma rabo inaan ku dheeraado waa institution cusub marka isaga hawlaha dambe aan ka hawlgeli doono ma ku baran doonaa wax macno weyn kuma fadhiyo waa wax bilow ah waxaan u gudbi doonaa kulankeena caawa iskugu nimidnay oo ah falanqaynta sheekada aan soo iclaaminay intaana kulanka ku gelin aan u gudbin waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodob yar oo xaaladda ka turjumaya waqti hore I think taariikhda exactly ma xasuusto laakiin 1700 in ahayd ma filaya qarnigii 18aad waxa socday rebellion Scottish oo boqortooyada Ingiriiska laga soo horjeeday dagaalka dheeraad Scottishka iyo Ingiriiska marka Scottishka waqooyiga ka soo galay London oo mataqaana dagaalku soo wada boqortooyada oo boqortooyada dhici rabto ay Faransiisku taageereen iyaguna koonfurta channelka taagnaayeen oo rabeen inay mar lagu heshiiyeen London la wada qabto hareeraha laga galo halkii Faisal sandwich laga dhigo marka communication la darteed channelka webiga laba dhinac laga fadhiyay labadii ciidan midna ku dhici waayeen ka horgal ka kale soo ka baqayeen looga dhaco dagaalka oo ku baabo marka sheekada waxa ku dhamaatay in bil la dul fadhiyo magaaladii deetana la kala sheekiyo deetana la kala noqdo boqortooyadu ku badbaado mataqaana communication la dibadna ka daba tagtay qol walba halka ay joogto frintiga marka la isku baneeyay waxaan ku xasuustay sheekada waxay gula qornaa ayaan la hori oo communication xuma darteed inooga maqan marka in maad soo galay magaalada ahayd galkii hore saa kolba telefoon iyo gaari iyo halkan iyo yaanikii helayay iyo hal soo qaaday iyo waqti baad soo gali kartaa aanu haynay doorkii baan xaqiiqsanay inaanu ka soo gaari karin marka taana waxa weeyaan ku kala yaacimeen anaguna noqon meena inteeda oo dhameystiran hadii kale oo laga dabeeymo doonaa waqti hawshii maxaad u fili weydeen baan la oran doonaa inta aad kaga baxo araarta waxa jecelahay inaan u gudbo mowduuceena oo ma soo iclaaminay oo ahaa falanqaynna ku sameeyno sheekada saddex nafood sheekadu dabcan sheeko yar ma aha 19 page laakiin waxay ku tirsan tahay sheekooyinka gaagaaban namadka adabka loo qaybiyo riwaayada weyn sheeko faneeda loo bixiyo aan jecelahay in kaliya sheeko ugu yeedho qasab ma aha in erir kale lada loogu daro sheekada weyn iyo sheekada gaaban marka sheekada gaaban bay ku tirsan tahay waxa jecelahay inaan ku bilaabo su'aal ah inta inaan discussion ka gelin iyo hore u akhriyo sheekada inta fadhida ko labo saddex afar xagga dambe okay waxa ku fadhina qiyaastii 12 qof ilaa 4 qof ba akhriyay waxaan markaa garoona ka duuli karno oo aan dhacdooyinka sheekada isla fahmi karno markaan falanqeynayno hordhaca markaan u galo si toos ah shaqada hawsha u galo waxa koobaad ee aan ka dan leenahay sheekadan markaan darsayno maanta inaad community akhrideen mooyaane posterkan soo faafinay shaleeto ku saabsanaa mawduuca eventiga ku saabsanaa comment ba aad u soo noqnoqday oo ahaa nooca sheekada inoo sheeko jinsiya ay tahay sheeko jinsiya marka oo ka fargareeyba discussionka marka kulanada noocan oo kala aan rabno inaan ku falanqeyno waxaan uga dan leenahay ay tilmaamaysaa inuu shayga uu xareeyo mesela qoraal macayna la soo qabto dabadeetana la yiraahdo waa qoraagii reer hebelo bas yani discussion kuma furna hadii kadib mowqif yani loola dhaqmo sidii mowqif aniga ma taageersan tahay soo ka soo horjeeda ma xataa muxiidkeena marka laga baxo Soomaalida laga baxo wax dibadda inooga yimaada in loola dhaqmo literature-ka iyo afkaarta mowqif ahaan waxaad ka qabtaa ma la jirtaa mise wad ka jirtaa taasi
iyo dhaqanka kale ah in loo isticmaalo qofka haybtiisa loo isticmaalo inuu tool wax fasira marka wax walba wuxuu sameeyaa hebel inuu mataqaana cidda yahay marka ma digaakiisa ama reerkiisa ama ideological cidda ku tirsay cidda hayaan taasi inta badan waxay xajibtaayo naga qarisaay deer weyn ka dhistaa shaqada laftarkeeda oo la islama gaaro in discussion laga galo qofku shaqada uu qabtay buugiisa wuxuu taariikheeyay methodology-ga uu isticmaalay khaladaadka farsamo ee uu galay ama waxyaabaha uu ku dhiiradeen qeyrkii ku dhiiran ama duruufta uu jabiyay ee uu dhaafay waxyaabaha noocaas oo marka shaqada loo daadego la fahmi lahaa la islama gaaro sheeda albaabka laga bilaabo waxaas diinta maxay ka qabtaa wax xaraan wax xalaal yani diinta laftarkeeda waxaanu ka joogsanaa albaabka gelitaanka ha iyo maya marka haday xataa maya tahay macrifo ahaan loo madarsa sheegay waa inaga xidhaadi kadib inaga laabo sidoo kale qofkan ma la socotaa mise lama socotid waa ha iyo maya haday ha tahayna adiga iyo isagu qofaad isku noqonaysaan oo dhinac wala idin haday maya tahayna oo qofkan lama socotid ay tahayna isaga iyo xiisaba kabiya xarkeed waa la isla tuuraa marka qodobka koowaad aan rabeyna ku bilaabo waxa weeyno dhaqanka noocaas si aan uga gudubno waa inaan acmaasha iyo mataqaana iyo istaaraadka dadku sameeyaan shaqooyinka dadku qabtaan ama gabi ha qoraan ama hees ha qoraan ama sheeko ha qoraan ama book ha qoraan in loo dego oo to the detail lagala niqaasho halka qora ee qofka ama mataqaana wax laga bedeli karo ama doodiisa lagu burin karaan waa halka qodobkaas aan ku dheeraaday hadaan dhaafo shaqadan caawa qabanayna waxa weeye oo dabcan ana sheeganay inaan khabiir ku ahay waa literature critique way waana maado furan oo jaamacadaha lagu darso oo maxaan ku raahdaa iskuulada lagu bixiyo oo madaahibteeda iyo madaaristeeda leh oo leh mataqaana taariikhdeeda iyo waliba maraajicdeeda iyo reference-ka loogu noqdo leh waxaan maanta ina soo dhaxmari doona sheekada aan u qaybinay aniga ayaa la markaan qorsheynay laba field inaanu darisno midkaayo u darso sheekada qaybta style-ka u darso farshaxanimada sheekada u darso midkaayna u darso qaybaha kale aan mataqaana u gali doono oo ah labada shay ugu horeeya character-ka iyo class-ka inuu ku eego labada dhinac marka ayaan loo ku qornaa qaybta maxaan ku raahdaa style-ka ka carshacaasheyn maayo oo u dhaafi doona laga yaabo in jaanisyo dambe isku helno oo mataqaana style-ka waxaan hadaan si aan u kala garano qaybtan iyo qaybta dambe ama dadka hadhow daawan doona oo kala saaraan style-ka waxaan uga jeednaa marka la waramayo ama story sheeko farad dheer ha ahaato ama sheeko gaaban ha ahaato ama gabi ha ahaato ama hees ha ahaato camalkaasi waa ilwey waa kamarado kale marka style-isku noocyo badan waxa jira bird view wax la yiraahdo dusha in wax laga soo sawiro marka inta qofku soo fadhiisto kaaga waramo san wax ahaan jireen waxa picture guud yani sidoo kale in isha quraanjada lagu eego oo cidda halka ugu hooseysa laga soo sawiro marka quraanjada haday nala joogto caawa guriga kulay uu joogto ama filaya sida inoo arkaysa loo arko oo ah in kor wax loo akhriyo oo hoosta laga soo akhriyo sheekooyinka laftirkooda waxa jira style-ka monologue soo hadalku u dhacayo inuu dialogue tahay oo cid sheekaysanayso iyo in cid waramayso iyo in internal monologue tahay oo qofka gudihiisa oo style aad u cusub yani xilliyadii dambe soo kordhay qarnigii ugu dambeeyay qarnigan internal monologue qofka sheekadiisa yani story-ga laga dhisayo qofka isagoo sheekaysanaya marka carshacaasheynta hadaan ku dhaafo qaybta style-ka oo sheekadeena intaan uga socday tahay sheekadeena ba ah internal monologue oo qofka sheekaysigiisa laga dhisay marka qaybtan anigu ku qornaa ayaan u gali doonaa weydiimihii aan xagga hore ku soo sheegnay ogeysiiska ayaan ku bilaabinaa oo ahaa kow maxay macna leedahay inaan sheeko faneed Soomaaliyeed akhrino oo darisno qof ahaan iyo wadar ahaanba yani mujtamac ahaan darisno waxa kale oo weydiimaha kamid ahaa maxaan mataqaan waaqiciinu xaaladda ku nool muxuu ka dalbanaya ama muxuu ka rabaa in ka uga baahan yahay hadaan si kale u dhigno in sheeko faneedan gaar ahaan saddex nafood Ibrahim Hawd aan darisno qodob kale ayaa ahaa sheeko nafood saddex nafood sheeko faneedan ma noqon kartaa maadada la darso yani literature loo darso ma noqon kartaa hadii laakiin la darso gorfayn iyo dood laga dhigo doodaasi way ka kartaa يعني حيندابك سؤاله كواسي هاين marka hadaan xayndaabkaas inuu ka diilano maskaxda ku hayna
u soo noqon doona markaan mawduuca xagga dambe ma taqaana uga gudubno ayaa waxaan ku bilaabaynaa qaybta koowaad oo ah karakterada sheekada shakhsiyaadka sheekada marka waxaan isla eegi doonaa sidoo qoraagu u dhisay curiyuhu u dhisay karakterka iyo sababta uu karakterku usan u noqday marka iyo trajectory-ga uu marayo karakterku shakhsiyadu ay marayso ma taqaana isbedelada ku dhacaya shakhsiyada inagoo hadhow isweydiin doona isbedeladaas kow ma yihiin isbedelo mubarara yani isbedelo la fahmi karo oo siyaaq raacaya yani wax logic muayyan raacaya mise waa isbedelo leembooda oo marba wuxuu doono marba meeshuu doonayo qoraagu gelinaya karakterka labo inagoo isweydiinayna society-ga sheekada laga qoray يعني مجتمع شكلنا سوريسو معقول ما كويه هي دعدوين كني isbedeladani marka waxa ku horeynaa shakhsiyada koobaad ma taqaano inoo sawirayo Ibrahim markuu saddex nafood ka waramayo ama uu curinayo oo dhamaantood yani ku dhacaysa internal monologue dhamaantood cid u waramaysa iyo cid iswareysanaysa toona sheekada inta badan kuma jirto marmar dialogue yaro kooban oo 2-3 sadar soo gal mooyaane 19 ka page ma taqaana dhaadheer A4 gebigeeduba waxa weeye 99% waxa weeye internal monologue shakhsiyada koowaad waa Siraad weeye oo gabadha sheekadu ay ku bilaabmayso Siraad hadaba aan isla eegna balse loo sawiray Siraad waxa la yiraahdo waxa weeyaan qof aan ma taqaan tacliin helin wax baran marka waxna ma qori taqaan waxna ma akhri taqaan waa inaan yaro 19 jira waa qof aan socod badnayn oo kooban ka gurigooda iyo sariimada u dhaxaysa وقف adeegto guriga ka shaqeysa oo family-gooda shaqada gacanta u qabata وقف aradan nolosheeda oo dhan yani maalina labis ku filan ma helin qof aradan nolosheeda oo dhan laakiin qadiyad muhiim ah jirto oo hoosta ka xariiqay marka shaqada socotay yani ku dhaxdarayo ah ha aradnaatel wax looma waayin wax looma lagama hagran waxba loo waayay waxa kale oo karakterkan ka arkayna markaan darsayno in qof nolosha uu ku jiro nolol ka weyn ama ka wacan ku riyoonayo yahay marka waxa ku riyoonaysa guri weyn waxa ku riyoonaysa gaari waxa ku riyoonaysa midalan inuu calaf fiican hesho waxa ku riyoonaysa isbarbar dhigaysa nin weyn oo ridi oo hantiila isku dharinaysa marka qaarna ay xasdiyaysa oo ay mataqaana hoosta ka kamanaysa waxa ay hayso qofka layna tusay sida u sawiran oo garan karnaa mujtamaca ka soo dhax saari karnaa inuu karakterka noocaas iyo family-ga noocaas ayaa waxa ku dhacay isbedelka koobaad waxa ku dhacaya marka loo dhiso yani eriga loo dhiso hoostaan ka xariiqno marka loo dhiso nin hodan oo hantile marka loo dhiso oo reerkooda lacag ku harqiyay marka loo dhiso waxaan hoosta uga xariiqnaa waxa weeye hadana niraahno marka ay guursato ayuu isbedel ku dhacaya waxa imanaysa in iyadu siyaadada leedahay in iyadu go'aan ka leedahay oo iyadu ay nin guursatay laakiin Siraad go'aanka ma laha waa loo gooyay waa loo dhisay markii ninka loo dhisay markii uu isbedeshay riyadeedu dhammaan rimooday waxay degan tahay hadda isbedelkeega nolosha shakhsiyadeeda labaad guri weyn bay degan tahay baabuur bay yeelatay shaqaale yeelato loo adeega gabadh ba guriga uga shaqaysa washmaan ba u jooga guriga u laaliya shakhsiyadeeda isbedeshay oo waxa isbedelay labiskeeda say u labistaa isbedeshay waxa isbedeshay qaabka ay u dhaqanto iyo qaabka ay u hadasho iyo qaabka ay u sheekayso isbedelay waxa isbedelay okay waxa kale oo muhiim ah oo isbedelay saaxiibadeed ayaa isbedelay mujtamaca ay la nooshahay ay la saaxiibto la sheekaysato sheekowdaagta ay la tahay haddaan yarada dajino karakteradeedu yani muuqaalkaygu aad buu fara badan yahay waxa muhiim ah oo isbedelay dhaqamadeeda marka midalan inantii xaafadda ku koobnayd oo socod badan tahay oo dalxiista xaabti tagtaa dharga gaaban bay xirataa wada baalataa coat wala barada baasha oo la dabaal bara isbedel labaad ba ku dhacay waxa noqotay marwo laakiin marwo iyadoo ah ay waxa noqotay marwo xad gudubta oo leh okay gabadh la qabo oo saaxiib la bay noqotay يعني جوجل داف سميسا oo nin kale la nool isbedel saddexaad ba ku dhacay shakada soo socoto waxay noqotay naag la qabo saaxiib leh laakiin dambi wadaagna leh yani qof ay jariimada wadaagaan
sheekada soo socota kiis baa dhici doona nin baa la dili doona ninka iyada ay ma taqaanaa ay goldhaafkooda sameeyaan baa la dili doona ninkeedana dili doona laakiin iyadu waxa iska bedelaysaa farabinan yar oo baraa'ad leh oo wax walba dhibayaan oo miskiina oo reerkooda u shaqeysa oo maxaan ku dhaahdaa gurigooda iyo suuqa meel aan aqoon inta qof lagu hordilo aan waxba iska bedelin miidka aasta oo qarisa oo waliba warkana aasta يعني شخصيته ay isku bedelayso inta markaan kaga baxno ugu dambeyntii waxa noqonaysaa qof baloodle yani characterku wuxuu ku dhamaanaya qof baloodle oo saaxiibo cusub leh markii saddexaad saaxiibo yeelatay laakiin saaxiibada imka yeelatay ay yihiin ragga jaaniba khamriga ina cabto bilowday ina baararka tagtana ay bilowday kuna dambeysay qof aan guur iyo calaf iyo guri toona dan kala hayn laakiin ugaarsi ku jirto maanta marka caawa markay soo baxdo ragga kala xulaysa hebla kan maraba kan yani shakhsiyadda inaga maskaxda ku hayna aan isla eegna shakhsiyadda labaad characterka labaad sheekada ugu weyn maaha laakiin characterka labaad ku xigay iyada characterka saddexaad baa ugu weyn ku soo xigaya character ahaan sheekada iyada characterka labaad waxa weeyaan nin da ah oo konton jira hantina leh oo ninkeeda markaa nin da hanti leh konton jira dumar jecel waxa ku garanaa dumar jecel yahay soo konton jira buu ina 19 jira guursaday laakiin su'aal muhiim ah xaga ku jirto xagga dambe isku weydiin doono ninkan hantilaha u saaxiib badan yahay u saaxiib badan yahay u dhixid badan yahay oo caawis badan yahay oo xafladiisiga iyo caawiska oo ku dheereeya baloodu leeyahay marka hore waxaan ogaan karnaa sheekada inuu baloodo leeyahay laakiin xagga dambe waxaan ka ogaan karnaa sidoo kale inuu baloodaha ay ku dambeysay siraad inuu soo ku horeeyay oo baarka tago khamriga cabo ma taqaanaa ku dheereeyo arrimahaas meelaha ku dhaxa ee ay ma taqaanaa ku weeda ay meelaha tahay marka xagga dambe ayaan ka ogaanaa sidoo kale labiska iyo saaxiibada dumarka iyo musiga iyo jazz-ka iyo waxyaabaha la midka ay noloshiisa qayb ka mid tahay ka duwan cagsi ku ah ninka kale sheekada ku jira cagsina ku ah siraad characterka qaybtiisii hore laba arrin oo muhiim ah ku jira waa nin aristocraadi maxaan uga jeednaa waa nin hantiilaa marka dabaqada sare ku jira wana characterka ugu muhiimsan dabaqada sare sheekada ku metelaya dabaqada sare inuu ku jiro waxay keensanaysaa nin noloshiisa nool yani lugaha fidsanaya marka dalxiis badan dibadda u safra maxaa ku dhaahdaa casuumad badan oo la soo ma taqaanaa saaxiibadiisa kale hantiileedii ay soo casuumaan oo ma taqaanaa banaanka aad wax uga cuna laba waa nin nukhbo weeya labada erisaan kala saarna qofka aristocraatiga hantiileeda oo ay ugu biirtay inuu elitist yahay elitist maxay weeye aan uga jeednaa qof مثلا qof wax bartay oo saaxiibo wax bartayna leh aqoonyahan saaxiibadiisuna aqoonyahan yihiin oo inta la nool marka aan jeclayn inuu dhex galo dadka kala dhex galo dabaqada hoose u daadego موقف كتاجن ضد كطبقات هوسو مثلا ضد حنو جهلي وفقراء ونافض حنو دقن حنو aan la noolaan karino marka iska dhawra oo iskala weyn la noolaado marka laba isku biirtay already ninkii wax dhici karta qofkii nuqbo yahay laakiin uu faqrin yahay marka isagu laftigiisu isnacab yahay oo dabaqadiisa nacab yahay laakiin nin dabaqadii sarana ah dabaqadii hoosana iskala weyn ayuu ninkani character-kan yahay marka waxaad ku garanaysaa midna lama fadhiisto dadkaan isku dooqayn masalada aynaanu la fadhiisan dadkaan isku dooqayn waxay keenaysaa inuu siraad ay la dooq noqon weydo marka uu la fadhiisan waayo dad kale inuu la caweeyo oo ka doorbado siraad oo ah xaaskiisii okay haddaan sii wadno shakhsiyadaasi macaan sii sifayno sii darisno waxa kamid ah oo nin maqano jooga marka مثلا guri buu leeyahay laakiin guriga uu ka maqan yahay aanu jooga uu ku nool yahay uu soo gala wax ka cunaa uu ka meedha uu ka labistaa laakiin physically guriga uu ga maqan yahay waqtiga intiisa badan banaan ku qaata ama shaqo tago ama saaxiibadaha la caweeyo mentally guriga uu ga maqan yahay ruux ahaan uu ga maqan yahay kama war hayo guriga marka shaqaalaha guriga jooga iyo xaaskiisa iyo dadka guriga ku jooga xaaladda ku nool yihiin iyo waxa kama war hayo marka waa nin maqana jooga gurigiisa ka ah waxaan arki doonaa sheekada markaan akhriyo qofku markuu sheekada akhriyo ilaana ma wada akhri karna sheekada inaan tusaale ka soo qaadan waxaan arki doonaa sheekada marka la akhriyo inuu yahay qofka character-ka ugu isbedelka yar la sheekada
characterkiisu consistent halka salaad marka hore farminan yar oo riyoonaysa oo faqriya to gabadh xaasliya oo hantileeya to mataqaana gabadh la qabo oo gogoldhaaf samaysato qof dambiila oo dambigaas ilaa ay jeel ku dambayso oo mataqaana la xiro yani si ay isku bedelayso isagu hal isbedel ba ku dhacaya halka isbedelna waxa weeye inuu qof caadi oo yani normal person yani waxa uga jeednaa qof nolosha caadiga qayb ka qof dilay inuu isku bedelo hal mar يعني 1 second قفت لا اسكو بدل شيكada qaybteeda dambe halka marba ay isbedel ku dhacaya character-ka hadda kaga baxno character-ka labaad sheekada inuu ugu muhiimsanaada ay ahayd raayigayga laakiin laga muhiimsan yahay character-ka labaad ugu muhiimsan ninkan ka muhiimsan islaafki waxa weeye character-ka wadaadka ama washmaanka waxa weeye xerow eriga xerow waxaan inay dul joogsan jecel marka hore ka hadlaynaa lahayn sidaan u fasirnaa literature-ka waxaan u baahanahay inaan adeegsano concepts mafaahiimina adeegsano inoo fasira content-ka inoo fasira mafaahiimta waxa kamid ah mesela mafhuumka waxa mafhuumka la dhahaa mesela mafhuumka xerowga oo kale tusaale ahaan haddaan isbarbar dhigno ka war xerowga iyo qabyaaladda haddaan isbarbar dhigno maxaan uga jeedaa inaan mesela qof ku qiimeeyno lagu fasiro action uu sameeyay talaabo uu qaaday lagu fasiro abtirsiintiisa lagu fasiro ma tahay mafhuum social science ka markaan darsino inoo damaanad qaadaya inaan fahmi karno sabab logically u fahmi karno qofkaas wuxuu waxa uu sameeyay because of qof reer hebel yani uu dhashay in waxa sameeyo basically mise sida mafhuumkan oo kale wuxuu noo fasiri karaa mafhuumkan oo kale qofkaas wuxuu xiro marka tira yani xirigu by the way maaha markaan social science ka hadlayno dadku markay istacaadina mas'ala kale laakiin yani waa character mujtamaca ku jira oo qof walba midalan yo-yo kale waa character mujtamaca ku jira qof marka lagu dhaahdo qofkaas waa xiro ama qofkaas waa yo-yo wuxuu sawir buu ku siinaya predictability oo ku sameynaya waana fasiri kartaa qofka talaabooyinkiisa actionskiisa sababaha uu qaadayo dawaaficdiisa waxa muhiim ah oo fasiri kartaa marka dhinac bay la yargashay laakiin qofka ninkan characterkiisa ugu horeeyo washmaanka waa xiro 25 jira ka shaqeysta deegaan aanu dhalan quraan ruuga cibaadada aad ugu fiican oo aad ugu dadaala masaajidka iyo shaqadiisa u dhaxeeya inta badan shaqadinteeda hore intaan isbedel ku dhicin characterka intaan isbedel ku dhicin waxa laakiin markaaba koobaad ba garanaysaa markaad isbarataan characterka washmaanka markaad isbarataan waxaad garanaysaa inuu nin physically dhisan yahay xoog leh sidoo kalena nin dareen badan yahay oo mataqaana baahi badan oo jinsi ay hayso aad ugu fikiraya guurka laakiin aan gaari karin marka wuxuu ka fikiraya midalan gabadha guriga kala shaqeysa la levelka inuu guursado laakiin wuxuu ka qabaa in aqbali karto inaan aqbali karin يعني marka la isku eego tabaqada ka hooseeya mujtamacahan iyadoo ka hooseeya wuxuu ka fikiraa midalan gabadh xaafadda jaarka oo agtooda digir ku karisa oo isleeyahay niyahow yani wadama ka qaadi kartaa mise iyada laftirkeeda kugu adkeyn kartaa macnaha marka waxaan u jeedaa waxaan arki karnaa qof aad ugu hamiyo guurka laakiin aan awoodin isbedelka koobaad ee ku dhacaya characterkan isbedelka ugu weyn ee ku dhacayana waxa weeyaan inta hore oo dhan waa qof mataqaana inta hore oo dhan waa qof ka cibaadeysanaya wax baranaya marka sheekh buu leeyahay xirtu taga 10 buu soo bartaa laakiin gurigii ma daa shaqadiisu qabtaa aroortiin oo baxa marka ugu horeysa Google Drive sameeyo gabadha uu shaqeeyo gurigeeda ka shaqeeyo Google Drive la sameeyo characterkiisu 180 darajo ay isbedelaya مثلا ninka isku canaanan jiray inuu gabadha markuu ka soo horbaxday inuu eego isku canaanan jiray waa dabaabtay isoo dhan jiray ayaa ficil noocaas caadisan doona marka waa character aad u dheer laakiin haddaan yara dedejiyo wuxuu aad u muujinayaa muranka qofka qalbigiisa ka dhaca ayuu characterkan aad u muujinayaa ضمير عذابك مرينو قفك ضميركيسو canaanto marka kolba markuu talaabo qaado ama ficil sameeyo hadana isqabanay ismaamulayo mataqaan ismaxkamadeynaya hadana isku tabriirinaya hadana ku soo noqonaya yani qof aad isku rogrogaya sidoo kale aad isku maxkamadeynaya aad buu haystaa isaga mushkiladaasi halka characterka kale ka horeeyay ninka aan marna ku arkeen inuu naftiisa wiil ka galay yani inuu su'aal iskelinayo talaabooyinka uu qaadayo ama uu isxukumayo isleeyahay wax qaldan baad samaysay isagoo waxa ugu weyn qaladka ugu weyn ee sheekada ku jira sameeyay qof dilaya hadana aan wiilkaasi aanu galayn اوكي isbedelka ugu weyn marka wuxuu ku dhacayaa aad arkaysaa sida uu mataqaana oo la dhaqmo midalan xirto kale soo la dhaqmo markan hore uu yahay kaliya xirigo yahay
مثلا wuxuu ka fikirayaa ka waran sheekhaga iyo xaaskiisu maskaxda ka fikiraya moogti dinu ka cawd bilaysan astaghfirullah sheekhidanaa cibaadada badnaay badsa waxas ma suurtoodo warnaa moogti ahli diin mooyana kaas laakiin hadhow marka dambe wuxuu isku tabriirinaya marka ay gabadh la saaxiibo inuu nin walba manima sameyn ay isku warnaa moogti hatta mandiqiisa logic isagoo isku la dhaqmayo ayaa isbedelaya okay haddaan sii wadno halka farqiga u dhaxeeya character-kan iyo character-kii hore waxaad arkaysaa inuu ninka kale aad u hanti badan yahay aad u cilaaqaad badan yahay ninkan aad u hantiir yahay aad u cilaaqaad gaaban yahay ninkan physically aanu fit ahayn ninkan physically fit yahay ninkan jinsiyan uu demsan yahay ninkan jinsiyan gubanayo marka faraaqa meel ka dhacay inuu buuxin karo ayaad markaaba toos u garan kartaa dad character-ka daristo waxa kale oo muhiim ah aad arki doontaa inuu marka gabadha guriga uga shaqeeyo la saaxiibo in isbedelayo isbedelka shakhsiyadiisa ku dhacay kasago dabaqadiisa isbedelayso marka ninkan odayga oo markuu soo galo mesela shaah qaboobay balax noqday loo dhiibi jiray meelaha waliba looga raadin jiray aan loo dhiibi jirin oo falaas hayl oo diyaarsan meel loo dhigo aan cunto heli jirin laakiin maanta qofka ugu muhiimsan ee guriga ka cunteeyo noqdo مثلا يعني gabadha ku soo xigay laakiin maanta gaadhay inuu gabadha maxkamadeeyo raado naagtan horta shaqo xuma maxay guriga ka qabataa ma ogta halku awal hore kaga fikiray gabadhan hadda tiraahdo aan ku guursado ma ku aqbali kartaa no dabaqadiis bedelaysa ilaa heer soo gaadhay inuu sida nin hantila uu dhaqmo oo mesela gabadha guriga looga saaro kale oo habeenkiyada la diro oo la maxaan ku raahdaa la hooyo marka xataa awoodda shabawarka mesela bawarka inuu kor u soo kacayo marka saddexda karakter ugu waaweyn baa horta sheekada ku jira waxaan u gudbi doonaa laba arrin oo kale oo labada dabaqadood sifooyinkooda sheekada ku jira dinna falanqaynta su'aalaha muhiimka ah sheekada ayaa ku soo xidhi doonaa marka waxaan arki karnaa مثلا sheekadu sayna tusayso in guurku yahay class mobility waxa sameeya class mobility waxaan uga jeednaa Angles iyo Marx markay u tandiirinayeen masalada classka inuu dabaqada sare dabaqada dhexe proletariatka iyo dabaqada liidata marka mujtamaca inta ugu badan dabaqada dhexe waa dadka shaqeeya waa dadka hantida abuura waa dadka mataqaana xoogsada laakiin sidoo kale waa dadka hantidooda la dhaco waa dadka codeeya waa dadka codkooda la khiyaameeyo yani ballanqaadyada looga baxo yani dadka mujtamaca ku dhisan yahay dabaqada sarena ku dhisan tahay dabaqada hoosena sadaqadooda iyo wax ka soo hara ay ku nooshahay laakiin marka yani static yani qofku uu dhashaa dabaqada family oo ka dhashaa ka bilaabaysan nolosha noado hantiilaa soo dhalmaysi moogta amaado qofka hantiilina soo hantiilu soo dhashaayo dhaxalka abihiya hooyadii uu ka bilaaba laakiin waxa jira phenomenon la class mobility in qofku ka soo dalaco dabaqad kale oo dalaco mujtamacaadka qaar kood waa adag tahay in qofku class mobility sameeyo oo inuu laga yaabo 6 generation مثلا inuu shaqo qura reerkoodu qabto marka shaqada kala dhaxlo dakhligooda la garan karo standardka noloshooda la garan karo mujtamacaadka qaar koodna class mobility aad buu fudud yahay sabab mujtamaceena kale qofka hadduu shaqo tago oo degdeg mataqaana shaqo helo shaqeero fiican helo dhowr chance ugu beegmaan ninkii oo dalacay wada arkaysa marka waxaad garan kartaa maqaaxidu fariisan jiray inuu bedelo asxaabta bedel ninkii gaadhi yar wataa ma ogtahay labiskiisa bariyahan badan yani waa class mobility inaga aad buu fudud yahay marka sheekada fikradaha ugu muhiimsan aad soo qaban karto waxa kamid ah inuu guurku yahay sababta koobaad ee class mobility-ga sameeysa marka siraad inuu guurku ka soo dalacayo faqriga oo ku soo daray dabaqada sare aristocratic ninka odayga ma taqaana washmaanka inuu cilaaqada uu leeyahay gabadha siraad ka soo dalacayso faqriga iyo ma taqaana iyo sheeg iyo baahida oo soo dalacayso inuu sidii ninka guriga lahaa kale u dhaqmo marka xagga dambe aan ugu tagi doonaa inkastoo aan rabin waqtiga sii badiyo hoostana inooga xariiqa hadaan dheereeyo horta bisadaan bilowna ma eegin saacada 10 minutes soma aan bilaabi karnaa soma marka saan soo darisnay karakterada iyo isbedelada ku dhacaya dhacdooyinka sheekada ka dhacaya hadaan dhacdooyinka horta alaykum salaam wa rahma soo dhaw dhacdooyinka hadaan saddex dhacdo ugu muhiimsan sheekada saan isku ina soo horreysiyay hadaha laga raalaado saddex dhacdo ugu muhiimsan dhacdada guurka siraad ayaa koowa dhacdada gogoldhaafka siraad iyo washmaanka dhacdada dilka ma taqaana ninka guriga li oo washmaanka dilay saddexda dhacdo ayaan eegaynaa si karakter kasta ay wax uga bedelaysan soo aragnay laakiin karakterada inagu niyada ku hayna dabaqadaha balan eegno
مثلا sheekada waxa sawiraysaa dabaqada hooseena dabaqada marka leena waxa ka dhaxaqreena characterka iyo matala dabaqada mesela dabaqada sare waxa matala ninka guriga leh odayga hantilaa gabadha gursanay dabaqada kale waxa matala washmaanka waxa matala siraad ba matasha inteedii hore inteeda damacniyada waa qof split oo isbedelay labada duality ku jira laba liba ku jirta thanaayada dabaqada hoose dabaqada sare ku jirta waxa kale matala gabadha guriga ka shaqeysa iyo dadyo kale marka haddaan si degdeg u dul marno mesela dabaqada hoose waxaad garanaysaa dad noloshooda kooban tahay marka mesela siraad gurigooda ka shaqeysa siribada taqaanaan nolol kale ma taqaano nolol kale ma laha dabaqad jahli ku badan yahay oo la fahmi karaa taa yani duruufta keenaysa tacliinta dawliga lacag tahay laantaas waliba sii socota marka aradan oo laakiin cagsiga dabaqada kale hantida haysa faxlaa oo wax bixin kara marka karakterada maadiga laga yimaado karakterada shakhsiga waxa kamid ah mesela dabaqad muran badan oo dagaal badan oo all the time haysta oo cabasho badan oo calaacal badan oo isxaagasho badan oo aad u damqanaya mesela waxa ugu yar la isku dagaali karo marka laano wali soo gaaraya mar walba guriga mesela isku furan marka gurigan bangalada deer kale lagu jiro iyo marka mesela lagu jiro guriyaha bulka oo ku oodan tahay xaafadu isku dhaqan noqon karaan labada guriga deriska waxba ma qarsoona waa la wada noolyahay adu bulkaagana ku nooshahay deriskaaguna bulkana ku nool yahay laakiin hadaad tiraado wala ismaqlaya marka isdibsiga marka badan laano qofkan moordan dadka kale ku garanaya isdibsiga badan marka dabaqad dagaal badan aad isku xaagata aad u damqasho badan ka ay keenayso taasi caado iyo waxyaabo la mid ah waxaba la yaab kala xakamida dabaqadan caawiska ma taqaan xoogsatada caawiska ma taqaan marka inta karakter xoogsatada shaqada ku arkaysid shakhsiyadood ku arkaysid midna arkimaysid isagoo caawinay arkimaysid isagoo xafladaysanaya casuumad tagaya dalxiis soo baxay waxa soo dhan arkimaysid laakiin waxa ka sii muhiimsan dabaqadan guurku ku adag yahay in la aqbalo macna in ninka gabadha aqbasho inuu guur doonto ay aqbasho ay ku adag tahay anoo factorka maadiga haynta taa cagsiga dabaqada kale hadaan bilowno waxaad arkaysaa dad damac badan leeyihiin because of hayntii baa jirta marka waxaad niyada ku qabataa wad iibsan kartaa ama wad laalshi kartaa ama wad marka dad damac badan marka nin content jiri inuu damac gabar 19 jira mesela inaad aragto aad u adeegsada lacagtooda influence ku abuura loo adeego gacanta shaqo ka qaban marka washmaan baa jooga albaabka ka fura albaabka ka xidha cuntada loo dhiga dharka loo meedha kan moogta laakiin xagga dhaqanka cagsiga dad degan oo nolol jecel naf jecel oo riski qaadan aqoon oo yani hanti bixin badan yani noloshooda ku bixiya hanti badan ka dalxiiska safarka kan labiska moogta aan ku adeedkin labiska marka مثلا dumarku kala gaagaab iska xidhaan buluudu ku badan tahay u qayla cawisu taga u dhaxa maxay moogta dad isku mashquulsan oo iyagu iscasuuma oo xafladeysta isku wareega yani seer kala hebel baa maanta casuumad hebel baa casuumay yani iyagu isku mutaqaana diimo yar yani tadawin yar marka karakterada muhiimka arkimaysid qof tukanaya arkimaysid yani karakter ka dhax arkimaysid qof mutadayina dabaqada sare waxa kale oo ka sii muhiimsan dabaqadan xandaabka oo ilaalisa yani dabaqadan xandaabka oo ilaalisa iyadoo ilaalinaysa nuxurka iyo dhadhanka nolosheeda marka mesela waxa arkaysaa siraad oo looga digayo mesela inay la sheekaysato washmaankayga iyo washmaankeeda iyo gabadha guriga uga shaqeysan la sheekaysato laano nolosheeda dhadhan beeli doonto marka haddaan ku sii soconno waxaad arki doontaa labada dabaqeen kala sheeka duwan yihiin marka dabaqada hoose sheekadeedu sheeka furantay qof walba soo gali kara yani aan invitation u baahnayn laakiin dabaqada hore codsiga maxaan ku raacay inuu dadku isfahmaysan inuu intii isku dhacda sheekadu ay sheekaysato marka shanta dhinac ka darsi lahayn sheekadu waa inta hadaan soo koobno ka labada dabaqadood iyo saddexda karakter ugu muhiimsan dadka kale oo dhan waa humaag marka gabadha guriga ka shaqeysa humaag ma taqaana family-goodu waa humaag ninka family-giisu waa humaag dadka ninka saaxiibadii waa humaag dhamaan yani waa dad xagga dambe ka muuqday aan main ahayn oo centerka joogin marka inta hadaan ku soo koobno waxa muhiim ah hadaba su'aalaha markii hore aan isweydiinay oo ka duulayna dhowr shay inaan sheegno sheekada markaan leenahay inaan si nuxur la sheekooyinka u darisno waxa kamid markaan karakterada soo furfurno dhacdooyinka soo furfurno aan furfurno dabaqadaha furfurno aan isweydiino doodaha ku jira sheekada doodaha
sheekada ku jirta uma jeedo halkan inaan soo wada koobayo laakiin waxaan u jeedaa inaan tusaalayaal ka bixin karno laano inaga waqtigeena eegayna sidoo kalena eegayna inaan mid walba mowduuc gooniya aan ka dhigin مثلا waxa ku jirta saan hore soo sheegnay dooda muranka qofka damiirka ka inoo actionska sidoo qofku isku maxkamadaynayo isaga ma taqaana ismaamulay mise wala maamulaya mesela waxa marka waxaad ka arki kartaa siraad baad ka arki kartaa waxaad ka arki kartaa ma taqaana xirigood ka arki kartaa mesela siraado kale halkan hadda tusaale soo qaadano مثلا waxay isweydiinaysaa qaybta 7aad ee sheekada nuxur qodobka 7aad siraaday waqtiga iyo duruufta xoog badana oo wax bedeli ogaa miyay jiri jirtay gabadh ka dhowrsan oo ka edeb iyo asluub badan iyada isla hadlaysa qofka siraad cid lama hadlaysa iyada isla hadlaysa in aan kaaga nin aad kaaga daawinin lagu dhisay maxaqba marka يعني قرميسا موقت سؤال بدن بيسودينيسا marka dilkii biysuudinaysa inoo ninkaas la dilaa in xaq ahayd xaqan kale mesela su'aasha muhiimka miyaad ka xun tahay iyada suudi wali sheekada socota miyaad ka xun tahay dhimashada ninkaas maya kama xumid oo galabsaday oo isagu ma dhagax meel yaalay baa nin wax sameeyay ma yani inoo misalada inuu qofku iscaanaanta mar مثلا ودنبيدي isku qoro marna isku tabriiriyo oo ma taqaana chances marka tusaalayaasha siraad tusaalayaal kala badan waashmaanka xirowga ayaad ka dhaxari kartaa waxa aad dooda uga dhex muuqata qofku shakhsiyad buu leeyahay madax banaan oo character dhisan oo wax kula falgalo mise duruufta shakhsiyadda uu sameeyay marka hadda dooda sheekadu ay soo bandhigaysaa in duruufta qofka sameeyso siraad duruufta sameeysa marka faqriga ahayd jaahiliga ahayd miskiin yar waxa ahayd nadiif oo baraaro dambi gelin oo reerkooda iyo gurigooda ka shaqeysa markay hantiyeysatay duruuf yeelatay dalacday dhaqankiga isbedelay dadka soo dhaqantay isbedelay oo kibir badatay sidoo kale dhaqamo cusub oo aan hore uga fikiri jirin xataa maskaxdayda soo dhicinay yeelatay marka dooda oo Ibrahim ku soo bandhigay sheekada aan soo arkay koobaad waxa weeye in duruufta qofka sameeyay in qofku character madax banaan oo wax kula falgalo aanu lahayn dood kale waxa jirta sidoo kale xirowga ayaad ka arkaysaa aan siraad iyo xirowga laba qof oo aad iskugu shakhsiyad aad u kala duwan laakiin aad iskugu trajectory tadawrka ay marayaan iskugu dhow su'aal kale oo muhiim ah sheekada soo bandhigaysa ee bakacabsiga in ilaahay laga boqo iyo bulshada laga boqo fadeexada laga boqo mid ka weyn sheekada waxaad ka arki doontaa siraad baad ka arki doontaa inuu mesela markii fal sameeyso mesela dil baa dhacaya in baa horteeda lagu dilaya in laga boqo in xariga iyo dadka iyo sheekadooda laga boqo qofkii inta midkii la aaso la qariyo oo la been la sheego in ilaahay laga boqo oo la yiraahdo yani khaladku waa dhacay laakiin la qarto oo la maro ciqaabteeda midkii weyn marka yani jawaab sheekadu kama bixin karto laakiin su'aasha miiska soo saaraysa inaad arkayso internal qofka sheekada gudihiisa ka dhacaysa oo ku sawirayo in doodaasi furan tahay midkii weyn in ilaahay laga boqo marka su'aasha markaas weydiin waxa dhici karta khalad farsamo dhaco oo mesela dadka ilaahay la sameeyo kale ama sida ku wacanta la isweydiin midkii aadaymka su'aal isweydiino in ilaahay ka baqday in dadka ka baqday midkii ku wacan midkii ku fiican obvious way ilaahayna ka baqo ayaa ay fiican laakiin waaqica marka laga hadlayo dadka caadigu si u nool yihiin ma in ilaahay laga baqa badan mise in fadeexada laga baqa badan ma in laga cabsado bulshada iyo hadalka iyo waxa la yidhi wax la oran doonaa ka doodaasi baa aad ugu jirta sheekada tusaalayaal badan aan ka arki karnaa su'aal kale oo muhiim ah ceebtii dilka midkii weyn laba dambi tii hore la xiriira ayaa ku jirta doodaha laga dhadlin karo dood kale waxa sheekada muujinaysaa cilaaqada aan ashyaada la leenahay waxyaabaha guriga gaariga hantida cilaaqada aan la leenahay maxaa xadidaya مثلا قدرينو إن وينينو ما يجا قيمة له أو نجوين مثل حالتنا قيمة وياش مركب باهن تهاي قري وحكلو يجاريه لكن مثلا مركب سراد هشوا قري يجاريه بريه شقالة هشوا وحاسي قيمة ما له مقناشها وذي كذا أيا قيمة له طالما برناك جورك كرهادنيس يعني دوداس مثلا نيكا أضيقة قري سلموينا ومقيها أفراتك ساعة قبل سلموينا لكن waxa la weyn fadaxada la weyn marka inuu ninkii gabadhiisa u dhaafay inuu dilo
instead oo ma taqaan midalan intuu caadi hawsha maamulada dambiga isagu ma laha moogta marka maxkamad la tago marka midalan furiin oo kale inoo la kala tago guriga ku baabaa laga fikir lahaa guriga waxaan ka dhaceen ma xas macquul ma marka dambikii ka weyn oo ka hadlay oo kale inuu galo marka cilaaqadan ashyaada la leenahay waxa xadida qiimaha iyagu ay leeyihiin waxa xadida xaaladda inagu aan ku jirno مثلا سراد إن جورج عيدي كتر أنت هذا ما كور كوريون شرتي جورج حالدي كوريون شرتي عيدي كتر أنت مثلا إنه مركاي إنك إذا قدرني شو أرادي شو لا هذا شوي وعذير هذا شو حركات كذا عادي أو حاجات كم أغنيات هذا لكن مركز ضمي كان يتقاضى أي محن كورا هذا أنا حتى كور هيني شو هيدي يو إن كلام dood kale muhiim ah jirta oo la xiriirda siyaadada qofku go'aankiisa misaga leh oo khalad iyo saxba misaga sameeya yani si madax banaan mise shaydaan baa maamula marka waxaad aad uga arkaysaa karakterka ugu muhiimsan wadaadka washmaanka xiriirga uga arkaysaa inuu midalan markuu salaada ka tago oo shaydaan baa ku duusaday meelada dambiga gale waxa shaydaan ka yeersanay marka dhowr jeer ay sheekada ku soo noqonaysaa dooda ah ficilkeena xun ma shaydaan baa sameeya بسيناga mashaddan ma naga keena bisaynaga sameeyno dambi ay tahay inaan dhannigu dhabarka u ridano oo aqbalno dambinimadiisa qodobo kale jira laakiin waqtigo aan koobina awgeed si aan dood inoogu furanto aan hore ugu gudbo saddex qaybood baa ay dhiman laakiin aan koobo aan isku soo qabto مثلا مثلا شكذا ما تقانا كو أماني كرنو أو مهمة أو ربنا هوس كحرقايا شرته أو قف مركو أدب لترشر سجان وقارئ مجتمع إنه مسؤول شيء وده استعماله مثل شيء محن وجه ده مجتمع يحلي شكوي ملي شكبر اللي بيقول شكوي كي شكبر اللي خرافاتكو ما هو حل سكيري وتاريخ أورتك أو هالكي سيد تاريخ دعويك لوجو ورم لها لوجو ورمه سيد خيالك لوجو ورمه marka in lagu kala xariifsan yahay in la adeegsado sidoo kalena qofku inuu mujtamaca matali karo oo uu sawiri karo ay ku muujinayso inta uu yaqaano mythology mujtamaca mesela waxaan ka arkaynaa Ibrahim Hawd in mesela Laylatul Qadarka oo waxa ugu wacani qof ku dhici kara uu adeegsado guurka salaad ka dhigo Laylatul Qadar sida iyadu oo liqaysay markaas oo kale oo arkayso kale مثلا waxyaabaha xataa kaftanka socodka inkastoo dadka qaarkood serious inta u qaataan xataa wacdiga ku daraan dumarka shaydaan ba saaran oo markay soo socdaan naasay walaalo markay sii jeedaan badidooda loola yani shaka caana weeyaan mujtamaca ku dhex jirta oo adeegsanaya Ibrahim Hawd soo waliba dood gelinaya oo siro kaftana u soo gelinaya shaka laakiin mythology-ga ma taqaana mujtamaca ay kamid tahay mesela maalku waa fitno hantidu in qofku hantiyasta oo fitno shakada ku dhaxarki doonta dhowr meelood marka mesela waliba isbedelka siraad u dhacayo inuu mantaqaana washmaanku ku sifaynayo inuu maal beesha marka ay fidnowday jirka dumarka in lagu sifeeyo wax bisiloo kale marka hobaan bisiloo kale inuu gabadh qurux badan u tilmaamayo oo ku sifeeyo mesela maahmaahayaha oo kale aad uga buuxaan tusaalahan wadaad baa mantaqaana qil ku banaysto iyo qandi ku qaataba le markuu ninka wadaadkii dambi kasta gala hadhow ma taqaana isku fasirayo xalba isagu ma taqaana oo isisiinayo marka mas'ala amaanteeda la weeyaan inuu mujtamaca mythology-giisa iyo khiyaalkiisa adabkiisa ay ka muuqato hadii kale wuxuu noqonayaa adab ajnabiya yani adab fotokobiya oo dul xaadisa waxyaabo kale muhiim ah ayaa jira milicsigeeda leh marka laba dhowr shay ma ku soo koobaya waxyaabo milicsiga leh mas'ala aad muhiim oo shakada naqdi yani lagu naqdin karo lagu celin karo waxa jira shakada sida ay u taalo oo shaka Soomaaliyeed shaka Soomaali marka waxaan weydiin karnaa qoraaga doorkii qoysku waxaan ognahay inagu nuclear family ma jiro yani family xaasis qaba lamaanays qaba oo family-gooda ka madax banaan oo cid nafsoo faragelin oo cilaaqad la lahayn oo laga daba iman oo la warsan ma jirto marka siraad family-geeda aaway odaygeeda family-giisa aaway xagee ku maqan yihiin shakada ka muuqdaan inaan loo baahanun maaha laakiin meelaha qaar kood daruuri ma waxyaabo qaar kood ka dhacayaan waa waxyaabo family-gu soo faragelin jiray qoyska ama kama gar iyo dhexdhexaadin iyo wax loo geli jiray misal maqan weey su'aal muhiim ah waxa jirta ninka odayga ee gurka gurka ku soo dalbaday gabadha 19 jirka gursaday ma prestige bu gurka u rabay yani
marka shakada dhamayno su'aalaha isweydiinayna ay tahay waxyaabaan uga baahanay inaan ka niqaashno ay tahay prestige uu guurka u rabo nin gabadh qurux badan qabo oo rag ugu faano mise xaas buu baahnaa yani gabadh buu baahnaa marka maxaan su'aashaas ku weydiinaynaa marka hore uu guursanay aad isku hawlay marka lacag buu bixinayaa familigu mataqaana la xiriiraya hantiba ka baxaysa laakiin markuu hadhow guursado gabadh helo inuu dalxiis iyo ay u raacdo iyo casuumad u raacdo mooyaane cilaaqad kale oo muhiim kama dhaxayso مثلا سراد ninka washmaanka gurigeeda ay u tagayso jacayl baa u qaaday mise baahi baa u geysay waxaad ku garanaysaa inta hore dhasay wax xanaananayso waxaad dareemaysaa in qof jeclaatay uu yahay laakiin marka la dilo sida uu la dhaqmayso midkiisa waa aasaysa shakadiisa u qaranayso ee aanay uga naxayn xataa waxaad su'aal waxay keenaysaa okay cilaaqan macay labadan qof ka dhaxaysa sheekada dhexdeeda waxyaabaha kale ma taqaana isweydiinta u baahan waan ku dari kartaan okay waxa soo dhan markaan soo koobno mulaaxado muhiim ah jirto oo mujtamacu ka kooban yahay bulshadu inay bulshooyin tahay yani hal bulsho isku xeeranayna jirin fikradaas waxay noo cadeynaysaa cultural shock ku dhacay qof inuu isbedelo yani markuu dabaqada laco oo dabaqad kale ku biiro cultural shock ku dhacay siraad cultural shock ku dhacay marka dabaqada sare ku biirtay intii hore oo wixii baratin wixii gacanta laga qaban oo dhan yani cunto guur safar maxay kan way sameyn kartaa laakiin finally ay dhex gali kari weydo darajatin oo ay la sheekaysan kari weydo oo odaygeedu ka dhaco oo markuu caweynayo dad ay fahmayaan uu tago iyadana uu guriga ku codlayo marka haddaan soo koobo waxaan ku soo koobi lahaa bishii hore ku noqday waxaan ku soo koobi lahaa yani su'aalaha in hor yaala ee muhiimka sheekadani marka sidaa tahay ma sawiraysaa yani si dhab ma u sawiraysaa mujtamaca ay sheegayso inay sawirayso mise gaab baa jira waxba ka boodboodaysaa oo su'aal muhiim ah oo in hor taala labo su'aalaha isweydiin karno waxyaabaha sheekadu ka jawaabin waxa kamid ah sheekada waa xilmee dhacaysaa يعني سبنك دعيسو iyo makaanka ay ka dhacayso midna sheekada lagu meeshan garanay marka speculation sadna sameeyno wax aanu yani extra qof walba ay tahay inuu raayis ku darsado midna waxa isweydiinaa sheekadan waxay ka dhacaysaa 8 Muqdisho marka waxyaabo macaan aad eegto mesela karakterkoodaadku kale marka aad eegto hantida dabaqada iyo haynta marka aad eegto mujtamaca ay liidka koobanaysa yaqaan yani khamriga iyo baarka iyo safarka iyo dalxiiska iyo waxa soo dhan marka aad eegto ma halkaas ka dhacaysa makaankaas iyo samaanka mise waxa ka dhacaysa mesela mustaqbalka wuxuu sawiranayo qoraagus leeyahay 10 sano kadib 100 sano kadib mujtamaca Soomaaliga ka soo toobi kartaa taani waxa ii burinaya in mustaqbalka tahay inuu karakterkoodaadka ku jira sheekadu waa karakter dhintay imika nin wadaad xirwi ma jiray imika nin wadaadkii waa nin isaga laftirkiisu laga yaabo inuu aristocrat yahay oo dabaqada sare ku jiro laga yaabo marka finally hadaan soo gabagabeeyay sheekadu si furfurtaa si aan ugu galno mataqaana discussion ka ugu galno sheekadii wata inagu dhakhriin aan falaqeynayno dabcan intani waa dul xaadis oo mataqaana daraasadinta ka dheer iyo maxaan ku dhahay khibrad intayda ka badan ba way u baahan tahay tawaaduciyo dhul dhigma ah waxa way run weey oo mataqaana hawl ba meesha taala intaas ku soo gabagabeynaya aad baad mahadsantiin dhageysigiina fiican iyo ka soo qaybgalkiina way noo furantahay wixii discussion assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kala horeysiino intii aqoonta iyo lacagta iyo daada u sheegan هذا أنا قرن كده رئيس كهيستين بشوف يوكر. الكوكاس بيسوي إنه نقولين حاسة وكتشوا بيجي سؤالي هي بشوف يجي. مو قرش تقولي. حاسة ملي نقول ملي. هدي أنا مرة هتقول يجي حاسة هاي. هذا كان أساس يعني رغم في بشوف قيمين يعني كل من يوم سوسي بحكي مثلا حاسة هاي. فكذا هاي كيس طبعا واحد نغير شيء فوق تعبير حسن. dhinaca kale waxa kaloo ay qiimeyn karaya sheekada laftirkeeda dhinaca farshaxanka waxa loo leeyahay waa farshaxan Soomaalida ku cusub inta badan waxaan ku akhrinaa filmaanta ku aragnaa waxaan ku aragnaa sheekooyinka kale ama carabi ku qoran ama ingiriisi ku qoran laakiin
in maaragtay mythology-ga laftirkeeda Soomaalida ay leeyihiin si markii dhabada sheegaysa sheeko noocan u qurux badan oo dhaqankooda ku qotoma oo akhlaaqiyadkooda ku qotoma oo culture-kooda ku qotoma oo diintooda ku qotoma laga soo dhex saaray isla markaa iyadoo la adeegsanayo yani principleska Soomaalida xeerarkooda iyo waxyaabaha qiimeeyaan iyo waxyaabaha ay caadiyaan iyo waxyaabaha noocaas la qiimeeyo laga soo dhex saaray iyadoo laftirkeeda marka dhinaca ka igtina waxay u qaban دراسات الفضاء. waxaa ku jirta sheekada oo inta badan dadka ka dhaxaysa oo sheeko ilaahay oo kale sidii markii sheekaysa dadka qaar ay qoraaga laftirkiisa ku dhalinaya laakiin ma eegayaan naqdinta ku jirta culture-ka iyo halka ay ku dambeynayso inta lagu dhiiri gelinayaa waxyaabaha wax sheeka ku sheegaya mise naqdintan waxay ku arooraysaa meel qoraaga أو ذلك أحد وقفنا ذلك ما هي يعني كان نوع عاصم كده حلو كويس مش أصلا يعني لكن واحد شيء يسأل كلتر كان بيقول لفت الكيس مرة قال حياته كينك يعني نفط الرجال واحد قرار شيء يسأل بشوي شيء كده يسوي يسأل بشوي كان محاول يقول كده يقطع عقل بالوده محاول أو صحيح وسلم هذا السؤال كمية إن نكني وبالتالي إن الجبل بالودي تلك كدبها حكى يعني كل شيء بروح هذا بربر كلام حكى يعني بالودي مكان يعني سوق بلود لها يوكا حيدا ما عاصر شيء كل يسوي شيء إن الودة البربر أسامي مسؤولية هنا حيدا ما عاصر كل يسوي mid kale uu ka jawaabisayo matalan style-ka sheekada saddex nafo mid baa gaarka farta lagu fiiqay ka soo qaad ninkan soo waa uu qasbay bulshada ku qasabtay in marinka lagu burki in waxa ka bixiyo deetana qofka daayay bulshada sidoo soo iibsaday guriga qasriga kaas laakiin arrinta kale ah gabadha iyo wadaad والله laga filayay inay yani dhowrsoonaadaan maxaa keenay inay dhowrsoonaan waayeen yani ay ka dhaxdo xiriir jinsi oo sharci ah waxa keenaya baahida qariisada yani matalan biology intee oo isweydiin kara intee qofku xakameyn karaya maftiis ya intee qofku xakameyn karaya yani baahidiisa haddii uu garanaysa waaye imkaaniyaad iyo waxyaabaha uu saamaxayay inuu qabtiray matalan dee gabadha waa la soo guursaday gurigaa la keensaday lama qabtirin muxuu ahaa qariisadeeda jinsiga isagana waa la aadinay sida maaragtay bulshooyinka waa aadinaa wadaadka oo laga soo qaadayo sidii uu yahay qof aan nahayn صدح لي وذات soo qaadayo sidii inta waxa uu garaas oo guri dhan oo laga tagay muxuu laga tagay gabadh iyo laba gabdhood laga tagay inta kali kala dhigay laga tagay howlo kala la qabsaday labadaas waxay keenayaan iyaga laftirkooda in garaas xandaarkii marka dambe u furto marka meelaha markaad ka eegtid dabcan sheekada u qabantahay دراسات قطر ديارون تنكسب أدبل ما سنت فيصل أي كله أوكي طيب هذه أدبل ما سنت شكله وحوي من عيف بالله كفر الإسكتاء توه الإسكتاء كان وحوي قرأوا قناة الإسدوس تابعوا وقت إبراهيم برشيدي سيئو وحمدي وحا أميسي هاي إنا وقت بلنقى طريقة ليه شكل يجيتا مركا سيدالي سمكا بوغ شكل عمرطبا أرمى مهمكا شكل كحيران لين هو وحا كان إذا يعني عبالات بلشدة شكلة مكاني طبعا
xilligeeda kusoo beegantay ama ibraahim sheekada faafiyey waxay ahayd xilli iska adag oo waxa guud ahaan adag soomaalidu aynan haysan yani dadku xoog u jiray dhinac kasta wax badan aynan haysan gurgumiyaadka waxyaala adkay markaa bulshada xilligan la dhex keeno sheekada la dhex keeno waayo bulshada ay u qaadato sheeko qof soomaaliya ka timi oo soomaaliyaysan yani way u fududay inay movies ka daawadaan ama sheeko kale oo lasoo turjumayo caynkaas ay arkaan wax iska caadi ah laakiin in qof soomaaliya oo yaqaanin oo in hebel ah ay sheeko caynkana ka timaado sidaas ah aad bay ugu adkay waxyaalaha keenaya waxay ahayd yani ay ku adkayd bulshada inay aqbalaan arrinkaas oo dhici karo tusaale ahaan yani nin wadaada oo dadkii yani inta lagu tuhmayey dabcan xilliga sheekada faaftay oo tartiibkaas la filayo aad u xoogaysan marka ciddii keliya joogtay marka ayaa si wax looga maqlay arigiisa iyo xalaaliisiin waxay ahayd ninkaas ka tirsan yahay dabcanna waxyaalaha soomaalida isku shaqalaysa waxa kamid ah inaad garanayso ama aad reerkiisa garanaysa ama in adeerka yahay ama aad shaksiyan u garanayso markaad guriga dhiibanayso guriga adigoo hatiilaan guriga aan yani efort leeyahay marka nin in hebela oo la garanayo oo wadaada oo in adeerkii uu guriga keensaday muddo intaan eg geysan karo ama qof yani magac wadaad hugunka inuu arrinkaasi geysan karo bulshada aad ugu weydiidayo aad inay weydiideen moodaa gabar miskiina oo yani baadiye laga keenay oo baadiye laga soo guursadayna inay dambi caynkaas intaa leeg ay geli karto iyadana wax bulshada xoogaa ku yara adag ay noqotay afkaarta ku jirta sheekada iyo waxyaala badan oo ibraahim uu sheekada ku dhex xusayaba xoogaa iyadana bulshada aad bay iyadana u diiday daliilaha kale sheekadu aad ku leedaha waxaa kamid ah inaynan lahayn wixii sheekada macnaha uu sameeyey oo ah deegaan iyo waqti sheekadan yani goormay dhacaysaa xaggee ka dhacaysaa xilliga soomaalida ku jirtay oo soomaalida sheekada ay faaftay waxay ahayd xilli xataa aynan caasimadu aada ugu sameeyeen muddadiyaan caalamka ama in sidaa loo horumaro ay aada u adkay tusaale ahaan characterka ninkan taajirka ee kale waxaa muuqatay inuu yahay waxaa weeyaan raaxaysta aada u cadba aada u safar badan yani meelo amni ka jiro oo dhaqaale ku jiro kalaas ay joogaan ku dalxiisto marka sheekadu daliilahay leedahay waqtiga iyo waaqica u qaadanayaan dadku marka daliilahay leedahay wax kamid ah inaynan sheekada meelo badan ama deegaano fara badan ama markii intii soomaalida xataa dhaqaaqaysa inaynan yani aynan ka suurtoobay xataa la dhaho caasimadaha xilliga ay sheekadu faaftay oo ilaa 2005 haddaan khaldanahay xilliyadaas ah aynan sheekadu ka soconay macal hargeysa iyo waxaa muqdisho iyo meelo kamid ah aynan ka fududayn in waqtiga ay ka dhacdo arrinkaas uu ka dhaco waxyaalaha kale waxa weeye sheekada waxa weeye xiisaha u sameynaya marka loo yimaado tayada sheekada yani inta ay tahay mawduuca tahay dareenkan ay gudbinayso waa sheekooyinka oo la oran karo alle way ugu sarreeyaan sheekooyinka soomaalidu qorto ibraahim waxaa aada loogu ammaani karaa inuu waxa weeye tayo aada u sarreyso oo sheekada kusoo bandhigay afarti badan lagu geliyey markaa taasna waa ammaan ibraahim iyo sheekadu ay leedahay arrintaas bay idiga tahay mahadsanid معلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. markii ugu horeysay sheekada waxaan aqriyay 2015 anigoo magaalada Hargeysa jooga waxaana igu wadaagay saaxiibay sheekadu maanta markii aan arkay waxyaabo badan oo cajiib ah ayaan ka arkay inta badan qoraalada Soomaalida aan ku eegay waxaan soo koobi karaa maantii intii markaa indhahay soo jiitay inkastoo sheekada meelo badan laga gali karo oo laga heli karo waxaan soo karayaa oo malaha 3 meelood ay arkeen waxa weeyaan luqadda ay ku qoran tahay sheekadu oo luqad aad u kooban oo qof kasta oo akhriyay markaa uu yaabayo ibraahim waxa uu leeyahay in muruqaasi aad ugu go'ay waxyaabaha laga sheekeeyay oo waxa weeye waxyaabaha kale uu ka hadlayo si caadi u hadlaa واحد موسى قف سيد دك عادي واحد سيد قوي لكن هذا كان ما كنت معطيني ولا دك الغفر اللي أيام النظام هاي واحد يكون خلاص هذه أنا
xaanadiina iyo laftiida sifooyinka halka ku jiro kuwa lamida oo dadka caadiga ay ka dhowrsanayaan ama qarankooda aan u qaban karin ayay isaga qabanaysaa markaa halka hadalka markaa dhigto marka waxaa oran lahaa way jiri lahayd sheekada qaabka loo dhigo aad bay qurux badan tahay laakiin in go la saaro oo dee waxoogaa iyagana qurxudan lahayd halka adiga ahaan markaad ka eegto dhaliisha ay leedahay sheekadaasi oo waxyaaba uu aad u fasaxayo oo si qaawan ugu hadlay badan baa jira taa markaa ka imaado waxa kale waa laba shay oo kale mid waa dhaqanka soomaaliga oo sheekadani ku salaysan tahay midna waa dhaqanka shaksiga ah ee qofku uu leeyahay marka ka soomaaliga markaan u nimaadno sidaad ka akhrisan karta sheekadani waxay ka samaysan tahay isdiidooyinka dhaqanka soomaaliga uu leeyahay oo qofka soomaaliga in waxyaabaha diintu aada loo weyn tahay wax kastoo uu sameynayana eegay diintu maxay ka qabtay iyo maxaana ka duwan sidaad ka arkaysa warda sidaad iyo wadaadka xilliga marka ودويات وين تشتري وشيطانك اسكن نهارية اللي حقايق وصل هذا نوع حوية وحركة يسا حاكم هذا نفتي اللي أول برامج هاي ويوم المدرب كي يو دينتي واحد بين يبدو مريش وهاي نفته كو درجنا يصير وحياه عصر عليه كله إن كستود دقة في الدنيا هذه بيجي هذا نبي بيصلى من ترى كلام واحد شو على الله يوسف عليه السلام هذا لو كله وصل وذات كسيلة جيم ده تصبحي يو سيجاتي دي كتاب كيو يسمعي يو كتلاص تاسينا حاجة ساين عن شخص يكون ما تتحول نفتي سيكون ذاتي وحيابي كريم لين إيه سايكولوجي قام باولوجي قدام تمنع يقول يبغى المسكح له ديسكو سما يسمع والرجع واحد من هذا إيه رياضة وبدن مسكح له واحد كسر يسمع في السكس أما جنسي ده كسر يسمع تاسينا واحد هو واحد كيريا intaan siraado soo hogeysin oo sawiro maskaxeed oo iska haysan oo markaa uu wiilal ahayo indhaha dumarka iska jirin oo markaa la fursay ta kale markaa waxa way xaq dhaqanka markii dib u soo laabano dhaqankeenu waxa la sameeyay waxyaabo dadku ay guud ahaan ceeb wada haystaan haddana marka hoos loogu dhaawaco inay dadku iska yaro doonayaan ama qof caadi to oo wax caadi tahay marka sababteed dhaqanka dadkiisa ma aha wax bulshada dhuuxeed ku jira واحد من ده واحد دوش سنوات كتير يوميا أو إنه بروح يعرفه أنا بشوفه مرة غيره عيب واحد يسمع واحد تروح هو يرضى على من عيب وقت العرض ده محاكم هذا قف واحد عيب الله هي قف كلا عيب الله مرة سأدرت واحد طريقة مثلا قبل كسومالي من بدنا هذا قالوا هي واحد يابا قار سي هذا بيرجو يستوي وحيابا قار كل صفر وحضور لكن وياها ما كانوا وحي عيب ولا ودي هي حضنا ده واحد في عادون قالوا وسط يكون ليه oo ay soo tanbajina sida sheekada sheekadan aan baaris ka loo baahan tahay qof kasta oo akhriya marka ma sifle buu noqonaya bilow oo yidhi deserto ya ma la ka sababteedu waa sheekada laga dhigay mariga laba oo baahan in diirad badan la saaro aad u wanaagsan laakiin waxa la leeyahay shaqadiya marka waa sababtooda luqadda qoranta oo luqadda fiican isticmaalina intaas ku soo qoray aad baa maasata macna ayaka leh نكاوديها بسم الله إلهي بمحك سبحانه على نبي محمد بعمان كل شكله ما دام أنا آخرين تفسير كده وجود كمان ضعيف لكن قد بدأ جار على السيد وفكرنا ولا لها شيء ممكن أكون نقول معي سيقول هل قدر بندوري يعني هل لو قدر تسوي شخصيات كالدولة كل شيء كده كنت شايف واحد درايم كنا إن جفت إنه بناء المحدي أي كسمي تايتل بدونه هاي جنسي بدونه هنو صدقت هذه قف كسمينيا مخالط سمينيا أو نقول قف أبويها أنا أو نقول جاهلة أو نقول قف العجز يستقف فقير وذا قف كالاستعاري أنت بقى شيء إسكا يعني عادي إنه قف وخالط كل taas oo marka ay gano waxay marka tada su'aashii walaalku markuu soo jeedinay buuga ka deewa dadku marka ay dhaqankooda caadi ku jiraan ilaahay ka baqaan mise inay ilaahay laga baqay mujtamaci laga baqo kulli sida caadiga qaalibka de fitrada caadiga ah taa waa qofku mujtamacu iska oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabo badan baa sababay qofku inuu san badan ilaahay subhanahu wa ta'ala iska oo kamida هذا كله بدن وممكن إذا فكرت له قضية الله سبحانه وتعالى يجرتين كسرون شيء غيبة قفت قلبي سيكون استخدام الدكتور مبالغية بين حكمين لكن قف كلوحة مادي جاي وأرضي وضدها أيسكين
سدرتيد با نبني ناشق عليه الصلاة والسلام إن بني آدم كويس السورجال هي خدم وياه عد بول بقى خدم يسوع حتى نبغى عليه الصلاة والسلام بيبقى هدي أيضا خدمي إلهي وحكين لها دونكم قوة خدمة وكذب لو دم دافع المدافع وديس marka inay hawshaasina hawl saaran taa xataa waxaad ka dareemi karnaa saraanada xuduudda iyo mataqaana cuqubaadka diinta islaamka ku jirta tusaalahaan qofka zinaystay la jeedo lagu dhufto qof waxay gacanta la jaro waxyaalahaas kale waxyaalaha qofka lagu xidhaay ama yani waxyaalaha keenay in qofka xadka isugu fulo maaha inuu ilaahay iska eegi waayey ama inuu ilaahay xadkiisa ku xadgudbo laakiin qofka waxaa xadka ugu fula inuu mujtamaca iska eegi waayo oo tusaale ahaan qof tusaale ahaan khaladkii zinada galay waxaa la yidhi waa inay arkaan 4 qof waa inay arkaan oo weliba hawshii socoto si waadaxa caddaan inay 4 qof u arkaan dabcan qofku haddii keligii uu meel isaga sameeyo maanta ciduma haysato isagii ilaahay ka dhaxaysa cidna xoog ma geeyo laakiin marka uu dadkii iska eegi waayo xumaantiisa qofku khaladkii sameeyay uu dadka iska eegi waayo ee uu banaanka la yimaado oo shaarici la soo istaago uu xadka qabanaya oo loonay 4 qof oo qof banaan la yimid way qofkay arkay marka taana waa inuu ka arki karnaa oo in binaadamka qalbigiisa ku weyn tahay mujtamaca iyo sultada caadiga maadiga ay arki karaan aad u wanaagsan aad baad mahadsan tahay ayaa kale cabdirasaaq arsa لكن صوت الوجود كان فيه عبد الله الرعي وضوء واحد يعني هو قرآن يقول واحد من حكاية إنه شغال كده لا يمسح خلفيتي إنه يقف وراء مع open minders كا أو حوالي أخلاقيات وهذيك السنة يتكس كشكل كم وقتها لكن مرة والله ما بتحطه historical context كما خلي السياقي التاريخي يعني محسن الشكل وعايش إن الوقت ده صومالي وعايشتي بالمدة دي هاي بعد يقول لك قدم يقول لكم مجتمعين صوماليا طبقة ديس ما مجتمع طبقة ديس وكان موضوع نوع ما كان يصير مجتمعات كلا جديدة كلا أما طبقة ما شايف هنا الصومال واحد مجتمع اسكول ودو ما كان على استنكر طبقة ما الشقيقة وكان واحد الشغل واحد كم مقطع إن ساعة يمكن يكون طبعا ما عرفت هاي كسرات صوته ما قدام خط الشركة شورى ما عرفت سيد كم مقطع سيد وودا كم هاي كم مقطع واحد يعني طبقة دينا الصومالي المجتمع يعني هاي كده حموضة وحويان أنا كأسكان حسنا عبية أخلاقيات وصمين معها أخلاقيات الصومالية قوية على واحد طبعا سنة أسكان تدينا وتدريب وحاجة ساعة شو أنت هنتيجي أما تاني يسمى ما تايح تقول سي شخص يوصل هنا يوم وكبقى يوم مجتمع هذا اللي أنت ساعي هذا هنا مرة حتى دوح وهذا يبقى الإسلام الملك فقال هذا يقبل واحتدين كم موضوع أي فوق القضية ضد الصومالي مرة وقصة مش فنيت يعني المدينة كفر يعني واقع الصومالي بري ولا شيء إلا ما تعايش مرة وحب رد عليه إنه صورة سنة سنين وراك عبدالله الشيء وقتها صوصة قضية بالصومالي المجتمع تحولات كلها عليه استبدال كلها إنك يمكن أن الشيطان يدرك متى تاريخ كونه حتى الشيطان أنت كلا الشخص كل كنا بنسعى خستا وهي واحدة أخلاقيات المجتمعين الصومالي ده بشوي محمد وجوه حوالي واحد الضوء عليها كبرى وحوالي صيد باهية وواضحة شيء كفني يقول إنه مو قلنا وكانت عسنا حوالي ليش أنت بدل مجتمعين هي سينا يعني بوبا واحد سنة واحد كيس كيلو للدوري يعني تابع كم بحري. هذا ما سنت. منا دبتني كذا. هو صدق مشاهد كان وضوء ضمن الوقتية. مرة شيء كان قيتن ضد مريلا
meelaha wada socdaanee qaybta jinsiga markaad eegto laga yimaado gogoldhaaf yani waa wax dhaca xataa mujtamaceega ha noqoto laga yaaba inay in general marka jinsiga laftarkiisa waa part of life qayb nolosha kamid laakiin in la qaribo yani waxay ku diidan yihiin dadkeenu sheeko soomaaliyeed bay ku dhex jirta laakiin sheekooyinka kale marka akhriyan caadi la tahay baa dhici karta marka waxaan odhan karaa qaybtii ku diidan yihiin inay tahay maadaama sidan yani qaawanaanta la sheegaya already meelo kale ku akhrisnaa laakiin soomaaliga yani sometimes waxaa jirta in qofku wuxuu rabo inuu qariyo luqad kale uu ku sheego marka uga fudud tahay inuu luqad kale ku sheego inuu taa jabinayay waxaa laga yaaba qoraa dad kale inay uga dhowrsadeen qoraayo kale inay uga dhowrsadeen hadalka dadka dartii ama dadka dhaliba ay ku sameyn midda labaad dhinacan kale ee wadaadka waxaan filayaa yani markii uu sidan characterkiisa u dhisay inuu islahaa fikradan la haysto ee ah sheekh weyn muqadas dadkeenu sheekh markaa kuwa muqadas yani ma khaldami karo waxba kama dhici karaan inuu taa meesha ka saaro oo dadka tuso inuu de sheekh yahay wax khaldami karo talabaadina inay tahay mid kale iyadna meesha ku jirto oo dadku ay aaminsan yihiin ayadana wax runka ah yani in sheekha uu yani markaad eegto ragga marka loo kala qaybo inuu sheekh ka baahi badan yahay dadka kale dadba magaca ku odhanaya qur-aanka guba ama duka marka taasirkeega inuu tusay laakiin iyaduna wax isweydiin mudan maxaa ka runa maxaa ka been aad baad maasanta ninka odayga عليكم السلام ورحمة لكن أنا ما أقدر لها إن يوم ما أقدر لها شكلها بره أنا خير لكن ما أقدر أنتي كان شوي بروح وهي روح لكن إنه ده صومالي هان إنه من ده قرالة بدن معانا وحتى عن أورو سوسايتي بدن ومرة قال هذا مدي لك اليوم إنه تاريخ لنا صومالي مع عربة عربنا لو حكيت إنه قرالة marka sheekada waxaan u yeelan noqonaya ama waxaan ka fahmin intii ahayd dadna badaway lahayd dambiga qofka gala mise shaydaanka temptation ku sameeyo ku qaanqaaday ana xanaalisanahay markii